cilmiga caafimaadka marka la baranayo qofka dhakhtarka ah waxa la baraa muhiimadda ay leedahay bini'aadamnimadu iyo in wax kasta oo doonistiisa ay ka horeyso badbaadinta naftu. warbixinteenana waxaynu ku eegi doonaa dhakhtar sameeyay ficil dad badan ama ka ku noqday hadal hayn badanna caalamka ka dhalisay. ninkan dhakhtarka ah waxa uu ku qasbanaaday inuu afkiisa ku soo nuugo kaadida nin ay si degdeg ah xaaladiisu u xumaatay iyadoo ay hawada sare ku jirto diyaarad ay wada saarnaayeen oo ay rakaab ahaan u fuushanaayeen. Shan Hong oo ah dhakhtar ku takhasusay qaliimada una dhashay Shiinaha ayaa badbaadiyay nolosha oday waayeel ah oo ay xaaladiisu meel khatar gaadhay kadib markii ay kaadidu ku dhagtay calooshuna ay si aad u barartay isagoo musaafira. ninkan dhakhtarka oo aan qalabkiisa caafimaad sidan marka uu xaaladan degdeg ah la kulmay ayaa waxa uu ka soo duulay magaalada Guangzhou ee dalka Shiinaha isagoo ku sii jeeday magaalada New York ee dalka Mareykanka. 6 saacadood markay uga hadhsanayd safarkiisa ayaa uu la kulmay dhacdadan mahadhada noqotay ee raadka ku yeelatay malaayiin qof markii ay maqleen waxaana codbaahiyaasha diyaaradda laga sheegay in mid kamid ah rakaabka diyaaradda fuushan ay xaalad degdeg ah la soo gudboonaatay kaadiduna ku dhagtay calooshuna ay aad u barartay loona maleynayo in qanjiru isxidhay. walwal ayay ku abuurtay rakaabkii diyaaradda. odaygan waayeelka ahna waxa uu ahaa mid baaxad degaya xaaladiisuna ay ku culus tahay diyaaradduna ma ay maraynin gagi ay caga dhigato si ay gargaar caafimaad odagan maruun loola raadiyo. Dr. Shan Hong waxa uu qaatay go'aan qadhaadh oo dadka fajac ku noqotay balse markii ay fushay ay dad badani ku amaaneen waxa uu samaystay katiitar caaga oo uu ka sameeyay mid kamid ah tuumbooyinka oksijiinta ee diyaaradda. gogolayaa bukaanka waxa uu ga dhigay karatoonta caanaha halka sidoo kalena weel ahaan uu isticmaalay dhalada khamriga laga cabo iyo mid kamid ah koobabka biyaha lagu cabo. intaasi kadibna afkiisa ayaa odaygii waayeelka kaga soo nuugay kaadidii ku istaagtay. 37 daqiiqo ayaa ku qaadatay Dr. Shan Hong inuu afkiisa kaga soo nuugo 800 oo mililitir oo kaadiya waxaana muuqaalka warbaahinta caalamka qabsaday laga dheehanayay Shan oo ku tufaya kaadida dhala khamriga iyo mid kamid ah koobabka biyaha laga cabo. Dr. Shan Hong oo la weydiiyay sababta ku kaliftay talaabadan inuu qaado waxa uu ku sheegay inay ahayd xaalad degdeg ah isla markaana aanay jirin si kale oo ay yeeli lahaayeen laguna badbaadin karo nolosha odaygan waayeelka ah. odaygii waayeelkaana ugu dambeyn waxa uu noqday mid cagiisa ku istaagay xaaladiisa caafimaadna ay sidii saxda ahayd ku soo noqotay. haddaba su'aasha warbixinteenan aan ku soo xidhayna ayaa noqon doonta maxay dhakhaatiirta Soomaalida gaar ahaan kuwa ka howlgala deegaanada Soomaalidu ay ka baran karaan talaabadan uu qaaday Dr. Shan Hong iyadoo ay xusid mudan tahay in inta badan dhakhaatiirta Soomaalida lagu dhaliilo in badbaadinta nafta ee bukaanka xaaladdu la soo daristo ay ku xidhaan dhaqaale qaarkood aanay haynin. Cabdi Fataax Red, Horyaal TV, Hargeysa.